soo dhamaaday haddaba daawadiina master jangeli oo idaacadda BBC-da qaybteeda afka Soomaaliga ee idaacadda la hadlayay ayaa waxa uu dhignaa hadalkiisu sida tan isagoo ka hadlaya arrintan kan si aanu ku soo laabano wararka Soomaalida ee guddiga qaran ee heshiisiinta iyo wada hadallada dowladda federaalka Soomaaliya u qaabilsan Somaliland ayaa waxa ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay wada hadal la furaan Somaliland arrintan ayaa timid kadib toddobaadyo ay wada tashi ku jireen sida ay sheegeen guddigaasi ay kuwaas oo kula jireen bulshada rayidka iyo madaxda kala gedisan ee Soomaaliya hase yeeshee xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Somaliland ayaa dhawaanahan sareysay mana aysan jirin wax kulana oo labadaas dhinac ay yeesheen 3 sanadood ee ugu dambeysay haddaba maalmahan waxa magaalada Muqdisho ka soconayay wada tashiyo uu guddiga federaalku la lahaa halkaasi bulshada ku nool umurtaasi ayaa waxaan ka wareystay xildhibaan Cali Axmed Jaamac Jangeli oo khadka taleefanka igu waramay shirarka aan wadnaa waa shirar lagu xog wareysanayo dadka waxgalka ee bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan sidaad la socotada guddiga xilalka loo magacaabay waxa weeyaan inay cilmi baaris sameeyaan inay xog soo ururiyaan inta aan wada hadalka rasmiga bilaaban ee dowladda federaalka Soomaaliyeed la gelayso Somaliland sidaas darteed waxaan ku mashquulsanayn 3 bilood ee la dhaafay xog ururin xoog leh iyo research fara badan maantana waxaanu annagoo taa ka duulaynaa la shirnay dalladda ururada bulshada rayidka shirarka haatan aad magaalada Muqdisho ka wadaan maxay ka tari karaan wada hadallada aad dowladda Soomaaliya u qaabilsan tihiin inaad ku matashaan Somaliland lala yeelan doono dadka laga wakiil yahay waa shacbiga Soomaaliyeed sidaa darteed aragtida laga soo ururiyo shacbiga Soomaaliyeed ayaa hagaya wada hadalka iyo wada xaajood waa qayb muhiim ah oo geedi socodka wada hadalka waana soconaya oo shacabka laga wakiil yahay midnimada loo raadinayo ee xalka loo raadinayo waa shacbiga Soomaaliya meeshay doonaan baa joogeen markii aad la kulanteen marka bulshada rayidka ah maxaa idin kaga soo baxay maxay idin la wadaageen talooyin fara badan bay noo soo jeediyeen talooyinkaas waa ururinaynaa iyagoo kamaan ururinay qaybo kala duwan oo meelo kala duwan ka yimi waana soconaysaa marka aanu xog ku filan ururino ayaa xalku ka soo baxaya muddo 3 sanadood ayay dowladdan haatan jirtaa ilaa waqtigaasna wax wada hadal ah oo dhex maray Somaliland iyo Soomaaliya ma jirto marka maxay tahay caqabadaha ku horgudban in wada hadalladii dib loo bilaabo annaga dhowr bilood horteed baan magacaabay waxaanaanu falgalnay 3 bilood horteed waxyaalaha hortaagan waxaad weydiin doontaa xukuumadda laakiin annagu intii nala magacaabay xafiis baanu samaynay xafiiskaas xog badan baanu ku ururinay mid taariikheed iyo mid siyaasadeed iyo mid sharci iyo wixii oo dhan baanu ururinay waxaanan qabnaa in waxyaalahaas oo dhani ay waxtar u leeyihiin wada hadalka waqtigu doonaba ha dhace waxaa laga sugayaa walaalaheena Somaliland inay guddi soo magacaabaan nala falgasha oo wada hadalka nala bilaaba insha Allah markay diyaar yihiin annagu diyaar baan nahay hawsheedii waa wadanaa hawshaasina hawl ku xidhan maamul kaliya maahe waa mid administration hadda dad Soomaaliya ka talisa ha joogta ama ayayna joogin waa mid xafiis joogaya oo waxaas lagu ururinayo oo jiri doona goormaad isleedihiin waad hana qaadaysaan hanaankan oo waxaad u bedelaysaan wada hadal dhab ah annagu diyaar baanu nahay Cabdulfataax wada hadalku waa laba dhinac dhinaciisa Somaliland baa laga sugayaa guddigii nala falgali lahayd aan wada hadalka la bilaabi lahayn annagu structure-kii implementationka iyaga waa diyaarsanay waa tahay laakiin Somaliland waxay ku doodaysaa in caqabadaha dhinaciina ay ka imanayaan waa dowladda dhexe ee Soomaaliya oo tan iyo markii dowladdan ay timid uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo dhibaatooyin badan loo geystay heshiisyadii hore la baabi'iyay laftigiinana soo liidmaari kara marka maadaama aad dowladdan matalaysaan in idinka laftigiina aadan diyaar u ahayn ee aad leedihiin Somaliland baan diyaar ahayn wax walba jira wada hadal baa lagu dhameyn karaa haddaan la wada hadal waxaas ma dhamaanayaan inay sii xumaadaan ma marka aragtida ah wada hadli mayno xal ma keenayso dad wada hadla ayaa heshiiya ayaa hore u socda marka wada hadalku wuxuu udub dhaxaad u yahay geedi socodka nabadaynta iyo midnimada Soomaaliyeed iyo xalka la doonayo in
inta laga gaadho. muddo sanada ayaa ka harsan muddo xileedka dowladdan haatan talada haysa ay magacowday marka haddaad bilowdaan xitaa gabagabadii xaggeed geenaysaan waxaad soo saartaan administrationka hadda jooga kuma xidhna annagu waxaanu diyaarinaynaa waa waxay xukuumadda soo socotaa ay isticmaali karto xogtaan ururinay waa mid diyaar u ah qofkii wadahadalkaa gelaya waqtigu doonaba ha noqoto. Somaliland waxyaabaha kale ee ka cabanaysa waxaa ka mid ah in xubnaha qaar aanay ku qanacsanayn ama deegaankooda ay ka soo jeedaan marka taana maadan bedelin sidee ku suura gelaysaa marka inaad is hor fadhiisataan? Cabdulfataax wadahadal laba dhinac markay wada gelayaan qolo walba xaq waxay u leedahay dadka wadahadalkaa u gelaya marka qadiyaadka taagan in laga wada hadlaa muhiime qofka wada hadalka Somaliland ka soo galaya dawladda federaalku ma xuli karto sidaa darteed Somaliland ma xuli karto qofka wada hadalka u galaya dawladda federaalka. xildhibaan cali axmed jaamac jangeli ayuu kaasi ah oo ka mid ah xubin ka tirsan guddiga qaran ee dib u heshiisiinta iyo wadahadallada dowladda federaalka Soomaaliya u qaabilsan Somaliland. weli waxaad daawanaysaan wararka Arabsiya News. magaalada Hargeysa ee caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland waxaa shir jiraayad ku qabtay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Liibaan Yuusuf isagoona ka hadlay wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland. wasiirka oo saxaafadda kula hadlay Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in marnaba Somaliland aysan raali ka ahayn guddiga uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxa uuna ku eedeeyay in guddigaasi aysan ahayn guddi lala fariisan karo oo wada hadal la xiriira Soomaaliya iyo Somaliland isugu imaan karin. waxa uu wasiirku uu sheegay in Soomaaliya aysan dhab ka ahayn wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya. waxa uuna inta hadalkiisa uu ku daray in ay ilaa iyo Soomaaliya guddiga imikan uu dhisay madaxweyne Farmaajo laga baabi'iyo aysan la fariisan doonin Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay. wada hadallada Soomaaliya taariikh dheer bay lahaayeen waxay soo bilowmeen 2012 ilaa 2016 Somaliland waxay marxalad baa la marayay foreign policy-ga ama siyaasadda ku wajahan wada hadallada Somaliland way isbedbedelaysay 2012 intii ka horeeyay Somaliland waxay qaadatay siyaasad ah inaan Soomaaliya lala hadal waayo waxa jiray dawlado ku meel gaar ah ama transitional federal government-kii ay ha noqoto ama ha noqoto transitional national government waxay u bixiyeen oo intuba ay ahaayeen dawlado transitional oo ku meel gaar ah marka Somaliland markaas diyaar uma ahayn wuxuu ahaa inay la hadasho laakiin 2012 bay wuxuu ahaa mowqifka la qaatay oo baarlamaanka loo gudbiyay xilligii madaxweyne Siraayo uu ahaa madaxweynaha in wada hadalladii dib loo furo 4 sano oo la wada hadlayay wuxuu ahaa inta badan oo lagu kulmay Ingiriiska wuxuu ahaa Turkiga Istanbul iyo Ankara iyo Dubai iyo Djibouti ugu dambeysayba lagama hadal qodobo masiiri ah laakiin waxa laga hadlay qodobo wuxuu ahaa isku soo dhaweynaya waxaan ahaan confident building measures la yiraahdo kalsoonida abuuraya oo ay kamid ahayd in hawada la wada maamulo oo ay kamid ahayd in la politicize gareeno la siyaasadeyn arrimaha dhaqaalaha iyo maalgashiga in nabadgelyada laga wada shaqeeyo in laga fogaado wixii muxuu ahaa isku dhac keenaya ama hadallada xanafta laga fogaado waxa soo dhan dhinaca Soomaaliya baanay ka suurtagelin dadkuna way og yihiin muxuu ahaa beesha caalamkuna waa ogtahay iyo dawladihiina dhexdhexaadinaya intuba waana wax cadaan ah hadaynu nimaadno muxuu ahaa qadiyada wada hadalka runtii horta imika de wada hadal socda ma jiro dawlado badan oo dareynaya baa jira oo kuwa gobolka iyo kuwa caalamka intaba iskugu jira waxa jira hay'ado caalami ah oo dareynaya Somaliland mabda'iyan waxay qaadatay in wada hadalkaasi socdo policy-geeda ku wajahan wada hadalka Soomaaliya waa kaas laakiin vision-ka ay ka leedahay Somaliland wada hadalladu waxa weeyaan in labadii dawladood muxuu ahaa 60kii koobidii muxuu ahaa July isku biiray inay si nabad ah muxuu ahaa u kala gurtaan hadafka Somaliland ee wada hadalladu waa kaas oo Somaliland ay u noqoto sidii horeba ay u ahayd dawlad xor ah oo madax bannaan oo ka mid ah qaramada caalamka wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya 3 arrimood baa asaas u ah kow in Soomaaliya aqbasho in Somaliland ay ahayd dawlad ka madax bannaan Soomaaliya oo marka la wada hadlayo loo wada hadlo labadii dawladood ee midna Ingiriisku muxuu ahaa maxamiyadii Ingiriiska ahayd midna muxuu ahaa ay gumaysan jireen Talyaanigu ee Soomaaliya Italia iyo Somaliland British Somaliland Protectorate
isku biiray ee midoobay midna 26 June ay qaadatay xorriyadda midna 1 July ay qaadatay ee isku biiray in labada dawladood loo wada hadlo halkaas uu ka bilowmaya muxuu ahaayay unuga wada hadalku oo hadii aynaan de labada qof ee wada hadlaya aanay isku qirsanayn inaad adiguna luqmaan tahay ana liibaanahay de sabab aynu wada hadlaa meesha ma taalo marka asaaska koobaad waa ka asaaska labaad waxa weeye in aan wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya aanay ka mid noqonin muxuu ahaayay dad ka soo jeeda Soomaaliland taasi oo keenaysa oo u muuqata daacad darrada Soomaaliya oo wada hadaladii u dambeeyay ay ku burbureen inaanay Soomaaliland aqbali doonin in dad u dhashay Soomaaliland ay wada hadalada qayb uga noqdaan Soomaaliya ta saddexaad waxa weeyaan inay meelasha lagu wada hadlay noqoto madal caalami ah oo dhexdhexaad ah oo fulin karta waxyaalaha lagu heshiyo isla markaana laga wada hadlo qodobada masiiriga ah ee aan muxuu ahaayay mar dambe waqti badan ku lumin qodobo muxuu ahaayay confidence building measures iyo qodobo kale oo isku soo dhaweynaa aanay ku milmin intaas marka la helo Somaliland mabda'iyan waxay diyaar u tahay wada hadal ay la gasho Soomaaliya oo si nabada loogu kala baxo si laba dawladood oo walaalaha oo jaara oo muxuu ahaayay sida wadamada kale ee muxuu ahaayay Soomaalidu degtay ee Djibouti iyo Ethiopia ka mid tahay aynu ugu wada guddidaasi runtii waxay muujinaysaa in Somaliland horey uga hadashay daacad darrada inaanay Soomaaliya daacad ka hayn inay wada hadaladaasi muxuu ahaayay si midho dhala ay muxuu ahaayay u bilowmaan una dhamaadaan waayo wada hadaladii hore waxa burburiyay in dad Somaliland ka tirsanay miiska wada hadalada soo fadhiisteen guddidana waxa ka muuqda dad muxuu ahaayay Somaliland ka soo jeeda dhalasho ahaan waxa kale oo ka muuqda dad lagu yaqaano nacaybshiyo iyo la dagaalanka Somaliland marka waxay muujinaysaa inaanay daacadnimo aanay dawladda farmaajo aanay ka ahayn daacad arrimaha wada hadalada dhaqdhaqaaqyadan maalmihii dambe aynu arkaynay ee ama shirarka ay u qabanayaan civil society-ga iyo muxuu ahaayay abaabulka la leeyahay waxa la dardar gelinaya wada hadaladii Somaliland iyo Soomaaliya waxay u muuqataa mudaxilaadkii farmaajo uu dhow yahay muxuu ahaayay xilligii ay doorashadii ay gali lahaayeen ay ku dhow yihiin waxay u muuqataa kaambeeyno siyaasadaysan oo uu kaga jawaabayo eedaha ay u soo jeediyaan ragga ku mucaaradka ah ee ah inaanu tallaabo u qaadin wada hadaladii Somaliland iyo Soomaaliya farmaajo marka nooma muuqato inay muxuu ahaayay wax midho dhala qabteen noomana muuqato inay yihiin dad muxuu ahaayay mas'uul ah hadalka wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Liibaan Yuusuf ayaa ku soo aadaya xilli magaalada Muqdisho ay ka socdaan dadaalo lagu doonayo anigoo magacaygu yahay Cidna Aadan Ismaaciil waxaan ka hadlayaa magaalada Hargeysa caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland waxaan ummadda af Soomaaliga ku hadasho oo dhan meelay joogaanba aan uga dirayaa salaan kalgacayl salaan ixtiraam waxaan doonayaana inaan ka hadlo arrinka ku saabsan wada hadallada labada dal ee Soomaaliya iyo Somaliland in la wada hadlo waan soo dhaweynaynaa waa wax meesha yaalla ummaddu hadday wax ku muranto way ka hadashaa way ka doodaa heshiis bay ka gaadhaa wada hadalladu waxay dan u yihiin labada dal dadka ku nool dadka reer Somaliland iyo dadka ku nool dalka Soomaaliya waxay waliba dan u sii tahay dadka degan dalka Soomaaliya dadka Somaliland 30 sanadood horteed ayay wadankoodii ku soo noqdeen wadankii oo burbursan waxay u soo noqdeen dalkii oo lagaga tegay waxyaabahan qarxa waxay ku soo noqdeen hantidoodii oo burburtay ilaahay wuxuu la qabtay inay dalkoodii dhistaan intii baaqi u noqotayna dadkoodii ay daryeelaan ka soo celiyaan xeryaha qaxootiga
dowlad u dhisaan dastuur u sameeyaan dowladdan maanta lagu faano ee dimuqraadiyadda ah ee xisbiyada leh ee xukuumad leh ee maxkamada leh ee baarlamaan leh ee guurti leh ee bayac mushtari leh ay dhistaan waxay dadka ku nool Somaliland ay awood u heleen inay dhallinyaradoodii wax baraan soo ceshadaan sharaftii iyo magacii iyo maamuuskii ay ummadda Somaliland ay lahayd magac wanaagsan oo lagu faano ayaa maanta ummadda Somaliland ay meel walbaba ay ku leedahay dowlado badanna ay ma jirtaan Somaliland waxay ka naxaysaa dadka 30 sanadood in ka badan ku nool Soomaaliya dalka aanu dariska nahay ee aan weli dowlad hagaagsan haysan ee aan nabadgelyo haysan ee deeq shisheeye uga timaada mooye dalkoodii weli uu yahay dal aan shicibkii nabadgelyo u seexan hantidoodu ay baylah tahay wada hadalladu waxay dan u yihiin maatadii laga tegay 30 sanadood waddankan loogu yimid ee ka haray dagaaladii ee ka haray burburkii ee ka haray xasuuqii iyo diyaaradihii dhibaatada u geysatay caruurtii aabbayaashood la waayey weli waa agoon haweenkii raggoodii la laayay weli waa meel ay gambada dhigaan garan maayaan odayaashii caruurtada la xasuuqayna weli waa goblan. So I see Elevate almost like mental exercises. It's like taking your brain to the gym. I'm seeing myself improve in different ways that I didn't know I could. I write a lot in my... taasi iyadoo ay jirto ayaa haddana waxaanu aad uga damqannaa dhibaatada ka taagan dalkan aan walaalka nahay ee jaarka nahay ee Soomaaliya labada dal waxay ku walaaloobeen oo ay ku heshiiyeen in wax wada qabsano iyadoo Somaliland ay waliba ka da'weyn tahay oo ay xornimo ka hor qaadatay ayaa waxay ku heshiiyeen aynu heshiino ummadaha af Soomaaliya ku hadla aynu isu keeno kuwa Djibouti ku maqanay Faransiisku gumayso aynu soo xirayno kuwa dalalka kale ku dhex jirana iyagana aynu soo dhaweyno oo shanta Soomaaliyeed ayaa heshiiskii hore u ahaa dalkii Talyaanigu gumaysan jiray markuu isaguna uu qaatay xornimadiisii oo 5 cisho ka dambeysay xornimadii Somaliland iyadoo curadkii ah ka da'weyn ayay soo dhaweysay wada hadalladii lagu heshiiyey ee lagu dhisay jamhuuriyaddii Soomaaliya heshiiskaas muu ahayn mid Somaliland iyadoo ka da'weyn Soomaaliya ay ku qabsatay manu ahayn mid Soomaaliya oo ka da'yar Somalilandna ayaduna ay ku qabsatay heshiis laba daloo walaalo ah ayuu ahaa heshiiskii markuu shaqayn waayey Somaliland la burburiyey 300,000 oo dad laga xasuuqay diyaarada cirkan loo gamay oo ay dadkii madaafiic la dhaceen hantidii burburiyeen waxay Somaliland dadkii ku noolaa qabiilooyinkii ku noolaa dadkii deganaa ay garteen inay xuduudii u dhaxaysay iyaga iyo Soomaaliya xidhaan oo dalkoodii dib u dhistaan wax dibindaabiye ah haba yaraatee Soomaaliya looma geysan wax aflagaada ah oo Soomaaliya loo geysana ma jirto haddii la cawdo oo la yiraahdo waxba nalaga xasuuqay aflagaada ma huwa xaqiiq caruurtii wali waa agoon hooyooyinkii aabbayaashii wali waa goblan
marka aflagaada maahe waa ha laga wada hadlo oo cudurdaar ha laga muujiyo oo samriyo iimaan ha la iska siiyo oo ha laga ducaysto intaasoo kale aanay mar labaad dhicin wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland ma aha qaar uguba wada hadalkii ugu horeeyay wuxuu ka dhacay dalka Ingiriiska 2012 waxaa joogay laba madaxweynihii Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo madaxweynihii Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed laba dal oo jaara oo walaalo ah oo wanaag raadinaya ayaa sabab u ahayd heshiis kulanka qodobo badan oo lagu heshiiyeyna way jireen oo labada madaxweyneba ay saxeexeen shirkii labaad wuxuu ka dhacay Dubai 28 bishii 6 2012 labada madaxweyne waa joogeen haddana mar labaad waxay ku heshiiyeen in la sii wado wada hadallada laga bilaabay Ingiriiska qodobna wixii shirkii hore loogu heshiiyey shirarka labaad mid ay ku sii biiriyaan heshiisyo cusub mooyee aanay noqonin qaar lagu laabayo ama lagu laadayo heshiisyadii hore loo gaadhay loo saxeexay labadii madaxweyne ee markaa joogay Sheekh Shariif iyo Axmed Maxamuud Siilaanyo labadii haddana mar labaad bay heshiiska ay ku heshiiyeen shirkii saddexaad wuxuu ka dhacay magaalada Ankara ee dalka Turkiga 13 bishii afraad 2013 waxaa haddana mar saddexaad joogay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxay ku heshiiyeen oo ay heshiisyadii hore ku dareen in nabadgelyada mantaqada ay meel uga soo wada jeedaan waxay ku heshiiyeen in deeqaha ka timaada qaramada midoobay ee mucaawinada ah si siman loo qaybiyo oo dal walba intii loo qoondeeyey aan dalka kale iska hortaagin waxay ku heshiiyeen inay wixii maxaan ku dhahay sirdoona ama wararka tilmaamaya meel nabadgelyo darro ka iman karto inay qaybsadaan oo isdhaafsadaan waxay ku heshiiyeen in 9 cisho dabadeed inay mar kale kulmaan shirkaas saddexaadna wuu dhacay kii afraadna wuxuu noqday magaalada Istanbul 7 ilaa 9 bishii 7 2013 waxaa shirkaa lagu heshiiyey in controlka cirka la wada maamulo xaruntiisuna ay noqoto magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Somaliland Jamhuuriyadda Somaliland madaxweynihii hore heshiisyadii uu galayna ay sii socdaan waxaa lagu heshiiyey in wada hadalladii halkaa laga sii wado shirkii shanaad wuxuu dhacay Istanbul ayuu 18 bishii koowaad 2014 waxaa lagu heshiiyey qodobadii afartii shiree hore lagu heshiiyey in kanna shanaadna intii la gudoomiyo oo lagu heshiiyo waxaa lagu heshiiyey oo kale
in shirka dambe uu ka dhaco meel qaramada midoobay iyo dalalka dhexdhexaadka ah ee si siman labadaa dal Soomaaliya iyo Somaliland ba dhexdhexaad ugu ah inay goobjoog ahaadaan oo wixii shirarkaa ka qabsoomi waaya go'aanadii ka soo baxay ka qabsoomi waaya dalal daba geli kara oo markhaati ka noqon kara waa lagu heshiiyey waa la wada saxeexay shirkii lixaad wuxuu noqday 22 bishii 12aad 2014 waxaa gogosha fidiyey madaxweynaha dalka aynu jaarka nahay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha Djibouti ayaa gogosha fidiyey waxaa goobjoog ahaa madaxweynihii Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxaa goobjoog ahaa madaxweynihii Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxay ku heshiiyeen qodobadii hore ee shantii shiray ka horreeyay lagu heshiiyey inay weli waafaq yihiin oo heshiiskii go'aanadii laga gaadhay sidooda yihiin lana sii xoojiyo oo mar kale la ogolaado lagu heshiiyo in cirka maamulka cirka laga wado magaalada airportka Hargeysa ee Somaliland qodobadii hore na sidoodii loo wado oo sidoodii ay yihiin shirkii toddobaad waxaa mar kale gogol fidiyey madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha Djibouti wuxuu dhacay 27 bishii 10aad 2019 waxaa hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Somaliland anna xubin baan ka ahaa intaasoo shirar waxaa loo galay hala wada hadlo oo heshiis hala gaadho oo wada hadalladu ha noqdaan qaar isbiirsanaya oo mid walba wixii lagu heshiiyey ay jiraan oo qaar lagu sii biiriyo waxaase nasiib darro noqotay in madaxweynaha dalkan jaarkanahay Soomaaliya madaxweyne Maxamed Farmaajo in qodobadii lagu heshiiyey ee hore oo dhan uu wada buriyey oo intuu maalin soo toosay uu yidhi saxeexyadii madaxweynayaashii hore waxba kama jiraan heshiisyadii lagu heshiiyey waxba kama jiraan oo uu subax intuu soo toosay yidhi diyaaradaha laga maamulo magaalada Muqdisho markaa waxaa isweydiin leh waxaa heshiis lala galaa qof qowl leh oo wixii lagu heshiiyey fulin kara waxaa isweydiin leh wada hadalladan iminka la rabaa ma kuwii horaa la ansixinaya ilaa halkaasay ka bilaabmayaane oo 8aad iyo 9aad iyo 10aad baa ku biiraya haddiise heshiisyadii hore ay noqdeen waxba kama jiraan dee waa gacmo daalis waxaa la doonayaa madaxweyne qowl leh oo wakaalad ka sita ummaddiisa oo shicibka Soomaaliya soo doorteen oo wixii madaxweynayaashii hore ku heshiiyeen fulinaya oo ixtiraamaya oo qowlkii uu ku fulin lahaa leh iyo awooduu ku fulin lahaa wada hadalladu halkii ay marayeen min 1 ilaa 6 isu soo dhawaansha dhacayay ummaddu way isu soo dhawaanaysay baayacan mushtarku wuu kala socdaa imikaba dhaawaca Soomaaliya halkan la keenaan ku daweynaa ardayda Soomaaliya ka timaada halkan wax ku barnaa ummaddu way isdhex gashaa Soomaaliya dalxiis markay ka cabsadaan halkan ay u yimaadaan dalxiis dadka Soomaaliya u dhashay halkan ay kula kulmaan
dadkoodii qurbaha uga yimaada waa ta la rabo isu soo dhowaansho wax wada qabsi waa ta la rabo somalilandna way soo dhoweynaysaa ummaddaa soomaaliya ee dhibta badani hayso ee 30 sanood dhibaatadaa culuse hayso inay dhibaatada ka baxdo oy mar uun dowlad yeelato saan unaguba dowlad u yeelanay inay mar uun nabadgelyo helaan saan unaguba nabadgelyo u helay in carruurta noo korto oo dhallinyarada wax noo barato ay u barato kuwa iyagu u bartaan oo kuwa iyagu say u koraan kuwaduna u koraan oo qaxootiga ka soo ururaan oo dalkooda ilaashadaan oo aanay u baahanin cid dalka u nabadgelyada u ilaalisa wax colaada oo dadka shicibka Somaliland iyo shicibka Soomaaliya ka dhaxeeya haba yaraadee ma jiro waxaan kalgacayl iyo walaalnimo iyo jaarnimo aan ahayn labada shicib uma dhaxeeyaan ee dawladdii lahayd waanu matalaynaa ayaa la garan laayahay si loola xaalo waxaanu ogolahay in la wada hadlo oo wax la dhiso oo gobolkeena la dhiso oo nabadgelyada la dhiso oo baayaca mushtarka la sii dhiso waxaanu ogolahay in dad dhexdhexaadii yimaadaan waxaanu ogolahay in wixii nabadgelyo iyo horumar u soo kordhinaya mantaqadoo dhan inaanu ka qayb galno aanu gacan ka geysano saanu 30 sanadoodba uga geysanaynay soomaaliyana ku soo biirto dib u dhiska mantaqada dib u dhiska geeska Afrika oo aanay noqonin dhaawaca meesha kaliya dhaawac u geysata mantaqadan geeska Afrika dadka wada hadlaya waa inay ahaadaan dad matalaya labada ummadood aanay noqonin dad ama godob ka galay oo ama xasuuq lagu haysto oo xasuuq ka qayb galay oo burbur ka qayb galay oo dhibaato ka qayb galay maatadii Somaliland ka qayb galay in hadan la yiraahdo wada hadal baa la gelayaa shakhsiyaadkaas ma suura galayso aqliga ma galayso in dad Somaliland u dhashay oo caruurtoodii iyo dadkoodii iyo halka joogaan oo Somaliland aanan cidi ka lahayn oo caruurtooda in badan ka dhaliyay anigu shakhsiyanba inay ka soo jeestaan meel kale oo ay u galeen malaha hunguri geeyay malaha siyaasadii geysay ikhtiyaar bay u leeyihiin laakiin se uma hadli karaan kama qayb geli karaan wada hadallo Soomaaliya iyo Somaliland ilaa waa dad Somaliland u dhashay oo inta anigu Somaliland ahay inteed la eg marka waxa weeyaan dantu hal wada hadlo waa inoo dan oo dadka shicibka Soomaaliya ay dan u sii tahay ee aan 30 sano dawlad arag in wadankaas isu kala socdo ee burburka ku sii dhacaya maalinta ka dambaysa ku sii dhacaya uu ka yaraado oo dadkooda u soo noqdaan oo wax dhistaan oo shaqaystaan oo baayaca mushtarkooda wataan oo nabadgelyadooda ka taliyaan oo dawladay raali ku yihiin doortaan oo qof walba cod iyo af uu ku soo saaro dawladdu rabo inay hogaamiso Somaliland dalkeedu waa nabad waa dad kalgacayl weyn u hayo dadka Soomaaliya ee dhibaatada weyn hayso oo aad uga naxayno marka wada hadaladii diyaar baa loo yahay hal is habeeyo qodobadii hore lagu heshiiyeyna hal soo bandhigo hal lagu dhawaaqo inay sidoodii u jiraan oo aroorta aan ku soo tooso in airportkii Hargeysa awoodii maamulkii diyaaradaha lagu soo celiyay sidii heshiisyadii hore ee la saxeexay ay ku saxeexnaayeen ee laba madaxweyne hore ay saxeexeen 3 madaxweyne laba madaxweyne oo Soomaaliya iyo madaxweynihii Somaliland ee markaa joogay raganimada taasay ku jirtaa wanaagu kaasuu ku jiraa isu soo dhawaanshuhu kaasuu ku jiraa annaba guddi waanu leenahay annaba diyaar baanu u nahay annaba waa soo dhawaynaynaa haddii cidi sii durkanaysa wada hadallada waxaan leenahay Soomaaliya sii durkanaysa ilaahay waxaan ka baryayaa in ummadahaas dadka degan
geeska africa in ilaahay nabadgelyada u soo celiyo oo ummaddaas af soomaaliga ku hadasha inay isu soo dhawaato qalbigoodu isu soo dhawaado wanaagoodu isu soo dhawaado heshiisyadu isu soo dhawaadaan laba daloo jaara oo aan midna midka kale lahayn oo midna midka kale xukumayn inay ilaahay ka dhigo halkaasaa dantu ku jirtaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu injineer faysal cali waraabe oo maanta qaar ka mid a warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay wadahadallada somalilan iyo u dhexeeya soomaaliya dibadda ka keenay muqdisho kusoo urursaday fikradii maxamed siyaad bare ayuu wadaa cadaawadii uu wadaa maanta isu dayaaradaan haysani dayaaradaan way nooga boobi lahayd markaa waa tabti adeerkii buu socdaa oo muqdisho ku wadaa inagu inala jecel yahay marka horta in la fadhiisto oo garanaya qiimaha ay Soomaaliya leedahay taariikhdeedii inuu dal ahaa dal ku darsamay oo yuu sameeyay yuunkan uu baabaay oo waxa laga sheekeynaya oo naxna wax ku sheekeynayo waxa ilaahay waa reer yar oo caraysan oo aloo de aanu doonina aan xaal siin waxa soo hadlaabay marka kaasoo kale waxa la fadhiisto maaha waxaan jecelahay insha Allah taala in anaga inoo dan tahay maadaama ay Soomaaliya wada hadasho 2012 waa ka wada hadleen cilaaqaadkooda mustaqbalka wuxuu noqon doono anaga jecelahay helo dawlad wanaagsan oo Soomaaliyeed oo taariikhda garanaysa oo dadkeeda hagaajisa oo ka saarta magaranaysa dawladaha gaalkacyo galbeed waqooyiga gacyo koonfureed gaalkacyo isku furta oo midaysan oo in markaa wada hadallo oo ku wada sidaan si wada nabadgelyo ku kala tegi lahayn si ku kala tegeen Eritrea iyo magaranaysa Ethiopia si ku kala tegeen Masar iyo Suuriya si ku tegeen magaranaysa Gambia iyo Senegal dawlado badan waxa jira midnimo ku hogoobay xukuumadda Soomaaliland way ka hadashay Dr. Idris waxa ka hadashay wada hadaladii inkastoo shuruud ku xidhay arinta ma la aaminsantiin wadnay qofka Soomaaliya waxa weeye inaan position beeban leenahay in gobasha lagu dhago meel dad dhexdhexaadiya oo magaranaysa in noqda guarantee facilitators ma ay noqdo mediators wadamada geeska ku jira aan ka soo qayb galin Djibouti iyo magaranaysa Ethiopia iyo Eritrea iyo foreign countries aan ka soo qayb galin magaranaysa dadaan leeyahay Soomaaliya iyagoo equal entities laba wadan maasuu farmaashi leeyahay reer yaro isaaqna ilaa aan hayne inuu qaran laba qaran isku darsamay heshiiska ka xumaaday haddana kala tagay waxa la wax la fariij nagu leeyahay ma jirto waxa weeye oo dawladuhu baa inuu yiri wada hadalka hadii ay kala bixi weynaa adduunka inuu si toos u weydiisan doono ixtiraafka marka qarna maalmihooda waa number sanad baa harsan soo noqon ma billahi kariim marka waxaan ka shaqeynaa dawlad wanaagsan in sameeyo dhanka kale injineer Faysal Cali Waraabe wuxuu ka soo horjeestay guddi uu dhawaan magacaabay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya oo xil saaray arrimaha wada hadalka isagoo arintaas ka hadlayna wuxuu yiri waxaan jacayl galis ku sheegnaa Ahmed Jaamac waxaan isku sheegnaa waxaan isku haysanaa Soomaaliya laba dalba hayne muxuu sheegaa muxuu ninkii Cabdi Gulwad muxuu sheegaa ninkii booliiska haystay ninkii gowleyaasha haystay qaybta ka ahaa magaranaysa xasuuqiya Soomaaliland waxa dibadda ku jamciye sheekara ma haraagi Maxamed Siyaad bare waa dawr fiicanta in bareerihina geysano meesha Soomaaliya isku timaado wixii waa cadaan kiiskan waa very strong ma ogtahay marka dawladda ka qayb gashay oo dashan Soomaaliyeed inuu calan keenisana inuu isla fariisano oo laba dawlad Soomaaliya ku in video socday ku waxa socday kala ka shanaan Djibouti yarid baa jirtay Soomaaliya jirtay inay noqonayno kiiska qaanun bareena ka waa fiican markii waan kulta waxaan ku intaan ay tagin intiina tagtay wada tashada